gudoomiyaha xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed Dr. Salaad Muuse Cali ayaa waxa uu shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhexe ee xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed. Shirkaas jaraa'id ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed oo la yimid hal abuurka si ay ku badbaadinayaan ummadooda iyo sidoo kaleeto waxaa hadaladiisa ka mid ahaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigoo ku hadlaya magaca xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha xisbiga Dr. Salaad Muuse Cali waxaan rabaa inaan halkan kaga hambaliyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee hal abuurka leh ee soo saaray hal abuurada badan ee kala duwan sida wiilkii soo saaray kaaraha soconaya ee aan laakiin ridaynin xabadda ee u baahan in laga caawiyo sidoo qoraya kaaraha ugu shaqayn lahaa ee xabadda u ridi lahaa iyo wiilkii soo saaray diyaaradda dhulka ku soconayso ee u baahan matoorkii duulin lahaa amba hawada sare u qaadi lahaa una baahan in laga caawiyo. waxaan kaloo rabaa inaan hambaliyo u diro wiilkii yaraa ee soo saaray geedda neefta oo loo yaqaano oxygen-ka oo manual ah oo u baahan in digital laga dhigo. waxaan rabaa inaan halkan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay garab istaagaan dhalinyarada hal abuurka leh ee anfacaya dalka maskax fireesha iyo fikir fireeshana la yimid una baahan in la caawiyo maxaa yeelay adduunyada aad u jeedaan qof walbaba waxa uu sameeyay ama waxa ka shaqeynaya waa wax markii hore la tijaabiyay ee dad ay tijaabiyeen kadibna naqday waxa dhaqan gala amba howlgala amba waxaad u shaqeynaya. marka waxay rabtaa wax walba in lagu dhiirigeliyo qof waliba waxbuu soo saari karaa alaabuuraa ku jiro xigmadii rabisiiyey ayaa ku jirto waana shaqayn karaa. marka waxaan rabaa in la isgarab istaago haddii ay dowlad tahay iyo haddii ay shacab tahayba iyo haddaynu nahay ganacsato wax waliba inay aan garab istaagno si ay waxa ay soo saaraan ay u anfacaan dalka iyo dadka waana wax anfici doona.